ورحمة الله وبركاته. وشماركم محمد علي مدح برنامج هون كابيتال نتورك. اللهم صل على سيدنا محمد. أصحابته رمضان كريم. waxa aynu rabnaa inaynu eegno US dollar, Singapore dollar, price-ku si xawliya buu kor ugu dhaqaaqay, deedna correction buu sameynaya. waxaan filaynaa markaa zoonaha aynu correction inuu zoonaha price-ku uu mar labaad uu yimaado. markaad eegtana price-ku waxa weeyaan allahumma salli ala maxamed, waxa weeyaan hoos buu socday, deedna correction kaasuu sameeyey docda kale. waxaad moodaa markaa imika halkaa sawiro trendline hadday sawiro in trendline-kana hoos u jabsaday. waxaan doonaynaa markaa inuu zoonaha markay ugu yar tahay uu soo gaadho. anyway waxa weeyaan US dollar, Singapore dollar, waxaynu aragnaa price-ku inuu jabsaday maxay, inuu trendline-ka jabsaday. aan sawire trendline-kana hoos u jabsaday, inuu xejisto oo uu halkaa markay ugu yar tahay oo lowga hoose gaadho, zoonaha gaadho baynu filaynaa. fursad baa ku jirta short odhanaysa. waa dailygii. marka haddaynu 4 hour ka tagno masalan, iyana zoonaha resistance-ka ah price-ku ayuu dhaafi waayey. zone resistance trendline-kana hoos buu jabsaday, marka inuu xejisto oo deedna hoos u sii socdo ayaan filaynaa. anyway US dollar, Singapore dollar short baa loo geli karaa. iska rabadaan bay ahayd oo 10kii dambe ahayd oo xagga cibaadada xoog la saarayo, markaa signals fara badan iyo waxba idin soo dhigin. balse waxaa sameysaan ciddii doonaysa markaa signals intan ka fara badan iyo tradeskan dhammaan ku jira positionadooda inaan la wadaago. linkska brokerska xaggan muuqaalkan hoos yaala qaybta description-ka ayaad ku dhufanaysaa, deedna account ba ka furanaysaa brokerska hoose, deedna email baa igu soo sheegaysaa. markaa ka bacdi aan hubinana taageero intan ka badan ayaynu ka wada socon doonaa. wixii faalaana xagga hoose ku qori kartaan. cidda ku cusub markaa muuqaalkan daawashadiisu ay ku cusub tahayna waxaa subscribe saaraysaa YouTube channelka Home Capital Network. subscribe dheh saa ula socoto markaa muuqaalada xiga. allahumma salli ala maxamed. waxa weeyaan masalan positionada ku jira oo dhan baa idin la wadaagayaa. imika kanoo kale waan idin soo dhigaan filayaa. Bond New Zealand weeye. Bond New Zealand already waxaan nahay positive. weli ma aragno wax astaamaha oo inaga hor imanaya, markaa short baan ku jiraa. 2 jeer baan galay. cagaad stop loss kan dhigay oo soo raray karaa. imika soo rarayaa. take profit kiina labaduba isu dhow kaasaan dhigay. waxaa kaloo masalan imika kale bond card oo kale taan eego, iyana waxa weeyaan waa la mid. short baan ugu jiraa. waxa weeyaan xaggaas stop loss ka dhigay markii hore, xaggaas marketka ka soo galay, take profit marka soo ah. marka iyana stop loss-ka waan soo rarayaa. haddaan soo raro oo aan zona aan keeno bartaan suuqa ka galay ama ficta dusheeda keeno, it means waxa weeyaan break even bay ku sameynay. trade-kaasi waxa weeyaan marnaba loss kuma xidhmayo inta uu ka gaarayo targetka. marka asxaabta si aan idinla wadaago markaa positionskan ku jiro iyo dhammaan signalskan galo, saa idin sheegay muuqaalka hoostiisa linkskaasad ayaad raacaysaa. allahumma salli ala maxamed. intaasaan kusoo koobi lahaa. kuwan just review dib waxaan baan idinla socodsiinaya fikrad ahaaneh, laakiin waxa weeyaan US dollar, Singapore dollar short ha loo galo.
short loo galo kadib markuu price-ku uu trendline-ka hoos u jabsaday. fikirkuna wax kale maaha, price-ku xoog buu kor ugu socday, dadna correction buu sameynayaa. Zoonaha kan inuu soo gaadho baynu doonaynaa. Targetkeena waa meelaha trendline-kana price-ku uu jabsaday. Idea-du waa intaas. Marka asxaabta short loo galo. fadlan muuqaalkan haddii aad istiraahdo wuxuun baad ka anfacay, like star, comment-ka wixii faalaan xagga hoose kusoo qor. intaasaan kusoo gabagabeynaa. Ramadaan kariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.